deegaanka Shululuux oo ka tirsan xarunta gobolka Sool ayaa hay'adda MBA waxay ka hirgelisay ceel riiga kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan dadka deegaankaasi ku dhaqan. Ceelkan dhismihiisa ayaa waxaa fulinaysa ururka SRO oo isagu ka shaqeeya deegaanadani. Dadka deegaanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay riigan loo keenay deegaanka Shululuux oo wax weyn ka bedeli doona noloshii biyo la'aantii lixaadka lahayd ee deegaankani ka jirtay, iyadoo ay cuqaasha iyo waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi ay u mahadceliyeen hay'adda MBA oo iyadu ku soo kordhisay riig biyood dadku ay ka faa'iideystaan, iyadoo dadka ugu faraha badan ee dhibaatada ku qabay ay ahaayeen haweenka iyo carruurta iyo dadka xoolo dhaqatada iyagu ka caba, iyadoo sanad kasta deegaankaasi dhibaato weyn oo dhanka biyo la'aanta ah khatar ugu geli jireen dadka ku dhaqan xoolo dhaqatada iyagu ka agdhow deegaankaasi. Halkaasi kulan ku qaatay mas'uuliyiinta hay'adda MBA iyo ururka SRO oo isagu fulinaya ceelkani iyo dadweynihii halkaasi joogay kulankii ay kaga hadlayeen ceelkaasi. hay'adda MBA ayaa fulisay uguna deeqday dadweynaha Shululuux iyada oo ay hawlwadeen ka ahayd oo ay fulisay ururka la SRO iyaga oo MBA iyo SRO ba hore ay u soo gaarsiiyeen macaawimooyin. MBA ballanqaad fiican u samayn doonto insha Allah inay wax badan oo kale ay ku soo kordhiso markaas riiga lagu guuleysto. sheega macnihiisu wuxuu ahaa inaan eegno shaqada ceelka si ay u soconayso iyo ceelka hawshiisa oo aan qolada SRO ka eegno hawsha meesha ka hayaan. mana aha safarkan ma noqon doono kii ugu dambeeyay intaan eegno ka noqon, laakiin ilaa ay finalka maanta u dambeysay ee lagu wareejin doono dadweynaha reer Shululuux ceelkii oo dhamaaday la oran doono qabsada waa joogto noqon doona insha Allah. in bulshada la ogeysiiyo inta mitir ee lagu yiri biyaad ku gaaraysaan intii baan rabnaa inaan gaarno 250 inta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu biyo wanaagsan oo na anfaca iyo carruurteena iyo carruurtaysi dhalaan anfaca inaan ku gaarno. MBA na hawsha ay wado waata ilaa adigu ilaa iminku waan ku guuleysanay ilaa 5 ceel inaan hawsheeda galno, 3 waan dhameynay, 2 iminka inoo socda. marka hadduu ilaahay yiraahdana dee waxaan u malaynayaa inaan hawsha meesha ka sii kordhin doono. wixii aad noo keenteen oo ugu horeeyo riiga biyaha noo soo saaraya naloogu soo tabcay aynu ka balansanayn wuu noo yimi, hawshiina wuu wadaa. ilaah baa mahadle waanu ku mahadnaqaynaa. jeerna hay'adda MBA gabadha ay hogaaminayso walaalahay iyo odayaashu halka waa ku kulan shukri xasan wixii naloo qabtay iyo waxa noo imanaya nabadgelyo iyo amni sugan baanu ku ilaashanaa. annakana wixii nala gudboon wixii aanu helo naloo keeno inaanu gacmo furan iyo amni iyo nabadgelyo iyo soo dhaweyn aanu ku gudoomino lana shaqeyno riiga waqtiga jiilaal walba oo dheeraada Shululuux waa lagu sigtaa maalin baan iyadoo la yishaa basaaka lama karin. waxa jira waxyaalo la wada leeyahay waan shaqsi lahayn. nabadda waa la wada leeyahay, biyaha waa la wada leeyahay, caafimaadka waa la wada leeyahay, waxbarashada waa la wada leeyahay. waxaasoo dhan waxyaalo dadka oo dhan ka dhaxeeya oo deegaanku wada leeyahay weey oo aan qof qori gaar u lahayn. inta inaad ilaashataan baa loo baahan yahay, waad ka shaqaysaan oo sidaad uga shaqayseen aad ka sii laba laabtaan. dhaweynta ilaa iyo maalintii ay hay'adaasi sarfeenka idin bilowday sidaad u soo dhaweynayseen, sidaad ula shaqaynayseen, sidaad nabadgelyada u ilaalinayseen, sidaad wax walba idinka baahdaan aad ula shaqaynayseen. waad ku mahadsantiin. ilaahay baa mahad. Abdikariin Nolol, Somali Channel, magaalada Laascaanood.